صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه إن قصوا كل ميي والله كل جان وحن دورنا ما ركتنا إلهنا ندوان أئمتنا يا علماءنا أخيارتا إن خير كبدل مساجد كأن قصوا دويسي يمجمعنا بركيسا كنا هلا يا كنا لا هلا يا أنت إنه بوحى مباحنا إلهنا ندوان يعني لا يودوانو وآخرة نودي أرجرونو والدنيا أنا كقاعد دين وحنا هينك كقاعد أو خسارة أول شيء الدنيا دوي بلا من تاوينا دماتا الماء كشيء هذا مقاشن أول شيء الدنيا أيا أو بلا بطي أولو دين هذا مقاشن أول شيء الدنيا أيا كدمات آخرة نوي بلا من تايا يدو دمات مله هذا مقاشن أولو دين تين أول شيء الدنيا أيا كدماتي آخرة وينك بنديت بنا أو بلا بطي hebel baa go-aynaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dad ee adduunye muxuu ka tegay caalamka samada dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyay inagu markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqallo hebel baa go-ay muxuu ka tegay laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa maydka marka la qaadayo uu nabigu weli degta la saarto ee nacashka la saaro nafta la sii wada hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu walli baanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga haddii nafta la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku wadaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiyo isaga un baanan maqlayn hadday labadaada maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri oo aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya laanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdillaahi ibni cumar bnu khadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay haayeen sida inaku aan u shaqaysanayeen sida inaku reerayo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka midu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyagoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qusquslayaan markaabuu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi laddaat la shaqalakum cama araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan duniyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo inakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahayna kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagaba maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yihi macmacaan duniyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanaad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku usii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaa nahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baa nahay anu gurigii madoobaa baa nahay waxaad iga shaqaysato unbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam marka qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su-aalood weeyaan man rabbuka
man nabiyuka ma diinuka mar alle marka qofka inagu aan dhigna qabriga ee ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shaqadiisa la maqashay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfatanaan dana way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood oo qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa nala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nabiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira ويوم يقوم الأشهاد إلهي تبارك وتعالى قفك مؤمنك إيمانك قبا صدح لا سؤالات قبرك قفل بلغوي دينيو إلهي قفك مؤمنك قصي بدونه إلهي بس جوابته حلشي دونه ولا ليال إلهي نهي نوسو الله نوسو الله نهي نودي قري صدح محققا كدقا تطبق ميسي من نبيك نقل إنك صدح سارينا محادو تقاني مرقا قفك مؤمنك أدوية دوشيد إلهي قرنايي إيمانك قبي إلهي بل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد إلهي تبارك وتعالى قفك مؤمنك إيمانك قبا صدح لا سؤالات قبرك قفل بلغوي دينيو إلهي قفك مؤمنك قصي بدونه إلهي بس جوابته حلشي دونه ولا ليال إلهي نهي نوسو الله نوسو الله نهي نودي قري saddexdaas su'aalood baa qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jirhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa لكن منفعة الصلاة هي منفعة الثواب كما أركيس واقعي آخرة طلب وتسين دونا شيء كما أنت مشاهدات كي نوم مغضى أي هذا وتورا نقول دونا مغيبات وحكاكر صميب نقول دونا شيء غيب كما أنت كاكر صون وحاول نقول دونا وحرت هذه ما ضد أركتو أيون نقول دونا ما أنت الدنيا نوم موقتا آخرة نوم موقتو لكن وقفكم مركو الدنيا كي انتقالوا دينتو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وحل أوران دونا داهي حجاب أيا كاسرنا نلشن لكن ما تداهي حجابك كاسرنا وكاقادني أرقا وحديد بغفق الله أوران دونا وأدوية دي بان نقول دونتا مش غيب نقولي دونتا عيال كيسي كبر كيسي داري كيسي أدوية ديسي يلعب كيسي والله قريني دونا وحمرك واركي دونا عملك أدوية وصوقبتي هدو الشر هانا وحواركي دونا عقوبة ديسي عرديسي هدو عقوبة دي إلهي عردي بواركيا هدو خير هانا الثواب كي أجر كي خير كي حسنات كي بواركيا أدوية دي وحي نقول إسا وح كاقر صومي آخرة دي نحكم وقتين نقول دونتا مركز مركا إلهي تبارك وتعالى أدونك إنت أنجمون لما أركي كرايو لكن آيات إلهي ولا أركيا ومن آياته الليل والنهار حبينكو آيات ويان آيات ومحي معنيه وعلامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو مالنتو علامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو قوغي يجيالك وعلامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو نولشي جيرد وعلامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو لبي يجدك وعلامة جريتان إلهي لغو قرانايو فقرق يقيند وعلامة إلهي لغو قرانايو جريتان كيسا عالم كنسدو أسعود وحاد كده حكيسا إن إلهي نظام كيسو عالم كو شخين عليه لكن نظام كي إلهي عالم كنو كو معمول عليه ونظام غيب والي نقا غريب ما أركي كرينو سيدا الروح دا جلك كو جرت إشاد وعيسادو أركي كرينين قعنت دقدقاء قيقاد أركيسا دكت مقل قيقاد أركيسا لقت سعود قيقاد أركيسا مدح دقاء إساد أركيسا لكن روح دا بنادك وما أركي كرام لكن قال إسلام هل كأمركو قف كردنتو انتو دا قفكا كردنتو وهو يعني haddaad tidhahdaa maxaad la ooyi waaga qofkii gacan kama goyn lugna kama goyn dheg lagama goosan oo dhan yahay jirhkiisii oo dhan oo dhan yahay maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana
kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaa meesha ka baxay. shayga qiimaha la waa maxay? waa ruuxdii. oo ruuxda maad aragtay may saad u garanaysaa? qalbiga ayaa garanaya. alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culummadu. qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya. shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan. ruuxdu waa qayb, waa lagaa qariyay, ma arki karaysid, laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa. caalamkan aad arkayso o dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan. nidaamkan caalamka o dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulgayb la yidhahdo. marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa. su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka, waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay. meheradaydu ima rabbaynay, allah baa i rabbaynayey. dukaanku ima rabbaynay, ilaahay baa i rabbaynayey. beertu ima rabbaynay, ilaahay baa i rabbaynayey. dowladdu ima rabbaynay, ilaahay baa i rabbaynayey. xooluhu ima rabbaynay, ilaahay baa i rabbaynayey. anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulyaaloo dhane, bal amarka ilaahay baan ku noolaa. laakiin su-aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay? nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho, dakhligiisu halkuu ka soo galo buu markaaba kuu sheegay. mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yar oo halkan ku taallaan ku noolahay. mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay. haddayna baxeen maba noolaanayn. mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay, beer. mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay. reer jibuutina waxay yidhahdaan lataraadkii baan ku noolay, lataraadkii macaashkii. may waa inaad tidhahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay anaku. alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii waladii yumiitunii uma yuxyiinii. wa usuul aliimaan, usuul alcaqiida, waa inuu qofku gartaa dawada aad isticmaalayso shifaadu lama socoto. shifaadu xag ilaahay bay ka timaadaa. dukaankaaga iyo meheradaadan iyo suuqaagan waa asbaab weeyaan, laakiin risiqa xagga ilaahay buu ka imanayaa. waa inaad garataa rabbigu waa allah weeyaan. macbuudku waa ilaahay weeyaan. ka cibaadada mutaystay waa ilaahay weeyaan. ka baryada mutaystay waa ilaahay weeyaan. ka rajaha mutaystay waa ilaahay weeyaan. ka cabsida mutaystay waa ilaahay weeyaan. keligii raje, keligii ka cabso, keligii baryo, baahidaada keligii u sheego. rabbigay waa allah. diintayduna alislaam. dhaqankaygu waa islaam. wax kale anu kuma dhaqmo, wax kale ma aaminsani. diin baan u noolahay, diin baan baranayaa, diin baan ka shaqaynayaa. qofka diin baan ku jeclaanayaa, diin la-aanna waan ku nacayaa. man axabba lilah wa abgada lilah wa acطaa lilah wa manaca lilah faqad istakmala aliimaan buu rasuulku yidhi. ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin, hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin, hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan, hadduu cid nici ilaahay dartii u nici, kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa inaad noqotaa qof lilaahi u noolow. taariikhu saxaabay ku taalla siratu caliy bnu abi aalib. nin baa yidhi hal min mubaarisin, waa xilli macrakadii muslimiintuna xagga ay joogaan, gaaladuna xagga ay joogaan. ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhaco yidhi hal min mubaarisin, ayaa macrakada igu soo dhacaya. cali baa u dhacay radia allahu canhu. caliy bnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu lagday. markuu seefteed qaatuu yidhi geli. markuu isinina caliy bnu abi aalib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuuf wejiga lagaga tufay. markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay, wejigaa lagaga tufay. gaalkiina dhulkuu jiifaa, calina seeftii buu haystaa. qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya. uu ka kacay cali. saxaabadii waxay ku yidhahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi. gaalnimana ninkan diinna waad ula dagaalamaysay, adigana qandhuufa kugu tufee. waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey, hadda cadha ay soo gashay buuhi oo naftayda darteed inaan u dila ka baqay buu yidhi. lilaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban. ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan. ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici. waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin. waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi. khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan. waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso. si su-aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam.